بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد يا أخيارتها هودا نغفر سنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هالكن وبرنامج كني هبنولوليد أو نوغا بحاي 5 Somali TV barnaamijkan oo ku saabsanaan doona habnololeed qaabka noloshaada ula noolaan doonto ayaa maanta waxaan ku qaadan dhigi doonaa qaabkee ayaad waqtigaaga u maareynaysaa maanta bishu waxa waaye waa 31 December 2020 barnaamijkan dabcan sida dadka maanta adduun weynaha ay ku tala jiraan waa caawadii loo dabaaldegay sanad guuradana ka islaam ahaan waa sanadkii miilaadiga waaye miilaadiga markaan leenahay taariikh ahaan taariikhda islaamka waxay noo sheegaysaa sanadkii nabi ciise dhashay calayhi salaam oo marka gaaladana ay aad u weyneeyaan oo ay aad ugu dabaaldegaan islaamka 80% hadda ay ku daydeen dabaaldegaas ay u dabaaldegayaan sanad guuraha muhiimadda marka maanta aan uga hadlayo waqtigaaga seed ku maareyn kartaa ama waqtigaaga seed uga faa'iideysan kartaa ama waqtigaaga maxaad ku soo kordhin kartaa oo laga rabaa inaad sidii hore si ka bedelan aad u dhaqantid ama waqtigaaga haduu dayacan yahay sideebaad ayaad u horumarin kartaa waqtiga markaan ka hadlayo ayaa nolosheena dhanba waxay ku beesgareysan tahay waa waqtiga ilaahay yacni markuu na abuurayay wax kasta wuxuu u sameeyay waqti waxaa jira aad noolaanaysid nolosha marka dhameysatidna waqti intaad dhimatid adduunka aad ka tagaysid muddo hadana qabrigaad ku jiraysid hadana maalinta لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم هذا إله هذا له ارتجي سيد وحي عملت قبضتي وقتي مركان لنا هاي أيا وقتي وحك استبى إلهي يعني ما دام وقتي وسمي إلهي وقتي أيو كل عارنا وقتي أهمية وليه هاي يدين الإسلام ك وقتي صدق قال وقلت هاي إلهي وحي يعني مركز مخلوقات كو أبوري وحياله إلهي كل عارت مركا إنه يعني وح أهمية إن لسيه أباهن ayaa marka meeshan ilaahay aayad quraan ayuu wuxuu ku leeyahay wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina aamanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr aayadan ama suuradan saddexda aayad ka kooban qof aan garanaynin oo maanta qof muslim la dhihi karo ma jiro qof kasta waxa laga yaabaa inuu kor ka xifdisan yahay shanta waqti salaada uu tukadan laga yaabaa saddex mar inuu ku tukado ama laba mar inuu ku tukado ama hal mar inuu ku tukado والعصر marka ilaahay casriga ayuu ku dhaaranaya oo salaada casr wal casr markii casr la leeyahay salaada casr iyo salaada subax waxay kamid yihiin xaafidu salawaat ilaahay yani salaadihii oo inagu amray quraanka dhaxdiisa in la xafido casrka oo kale waxa soo degaysa malaa'igti saak subaxdii soo degtay ayaa casrkii baxaysa kuwii casrkii soo degayna waxay baxayaan subaxii marka labada malaa'ig oo labada waqti isbedelaysa ilaahay wasuxbi subaxii uu ku dhaartay ilaahay markuu waqtiga ku dhaaranayo muhiimadda la rabo inaan anaga daran ayaa waxay tahay inaan isweydiino ilaahay waqtigan uu ku dhaartay oo ilaahay intaas oo mowduuc uga hadlay waqtiga dadkan musallifiinta oo maxaan ku dhahaye waqti ka sheekeeya horumarkana waqtiga markay ka sheekeynayaan kuwa waxay dhahan waqtigu waa diamond kuwa waxay dhahan waqtigu waa dahab waqtigu waa qaali waqtigu lacagtu ka qaalisan yahay waqtigu waa kan nimba wax ku sheegay laakiin waxa soo dhan waqtigu ka qaalisan yahay sababtu ugu qaalisan yahay waxay tahay noloshaada oo dhanba waa waqti saaka markuu ilaahay waagu barsiiyo oo ilaahay caafimaad kugu soo toosiyo ilaa salaada maghribad ka gaarisid waxa labada garab ka saaran labada malag oo qoraayo wixii qalbigaaga iyo qowlka afkaaga ka soo baxaya labada malag marka midna wuxuu qoraa wixii khayr ah midna wuxuu qoraa wixii shar ah labada malag ee marka khayrka iyo sharka kala qoraya ayaa malaga khayrka wixii khayr ka soo baxay afkaaga ka soo baxay oo qoraya ayaa marka maanta dhan wuxuu ku dadaalayaa kelmadii niyadaada si wanaagsan aad ugu fikirto xitaa inuu markaasba ku qoro meesha malaga xumaatada ku qoraya hadaad xumaato samayso oo dib kuugu dhigay maanta dhan isleeyahay intaas waqti u helaa inuu istighfaarsado waqtiga mar kastaba yani waqtiga inuu fursad yahay fursad qaali oo fursadaas hadaad ka faa'iideysan weysid bal inaad khasaartid maaha nolosha xitaa inaad dib uga dhacdid waxaa jirta oo dhahaysa alwaqtu kal sayf fa in lam yaqtac fa innahu yaqtacaka waqtigu waa sayf oo kale adi hadaad kala goyn weysid waqtiga isaga ayaa ku kala goynaya ilaahay marka wal casri markuu ku dhaaranayo yani waxaa laynoo sheegayaa waqtiga siduu qaali u yahay ilaahay waxay ugu qaalisnaa markaas inuu ku dhaartay
hadda dadka waad aragteen dadba waxay ku dhaartaan awlaadooda dadba waxay ku dhaartaan lixaadkooda dadba waxay ninba waxba ku dhaartaa isagoo markaas dhaartaas ka cabirayo shaygaas inuu wax muhiim oo aada muhiim u yahay waqtiga markaa qaabkee baan u maareyn karnaa waqtiga ilaahay uu ku dhaartay annaga qaabkee baa laynaga rabaa inaan u maareyno oo marxaladii aan ku jirnay marxalad ka duwan aan u galno annagoo markaa waqtigeena ilaashanayna tusaale cimrigeena uu kooban yahay cimriga ummatu nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam yacni inta badan waxaa loo aanayaa 63 sano iyo wax yar ilaa 70 meelahaas in la gaadho waa ummadda ugu cimri yar waqtiga markaa yar ee lagu siiyey ka hor inaad dhimatid ayaa macquul ah waqtiga yar ee lagu siiyey seebaad markaa uga salgaari kartaa uga guulgaari kartaa gunta waqtigaas aad u gaari kartaa aad waxna ka qabsan kartaa waxaas aad qabsanaysidna uu kuu noqdo mid fi dunya wal aakhira adduunyadaada iyo aakhiradaada mid ku anfaca maanta waxaad arkaysaa dadka dhan markaad is aragteen qof kasta wuxuu ku leeyahay waan mashquulsanahay waqtigii waa yar yahay waqtigii uguma filna maxaad qabatay haddaad dhahdeen qofku wuxuu ku leeyahay wallahi wax allaale waxaan qabto ma garanayo haddana waqtigii anoon u jeedinba wakaas wuu iskuray hadda unbaad soo toostay duhur baa la adimaya casraa la adimaya waxaan qabtayna ma garanayo ayuu qofku ku leeyahay taasoo ay tusaale u tahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam zaman waxaa la iman doonaa waqti kasta barakadii laga qaadayo iyadoo baraka laga qaaday ayaa haddana waxaa laga yaabaa dadka ilaahay u dhow oo ilaahay mu'miniinta uu ku tilmaamay weli waqtigoodii inuu u barakeysan yahay oo waqtigoodii sidii la rabay inay uga faa'iideysanayaan qofkan maalaayacniga ku jira ama waqtigiisa u nidaam u lahayn oo waqtigiisa aan nidaamsanina inuu maalaayacni inuu uga dhammaanayo waqtiga markaa hadda aan joogno waxaan xooga saarayaa markaa dhinac kasta oo maanta dhalinyarada nolosha ay ka qusayso waxaad arkaysaa qof 20 sano ka hor meeshuu joogay oo maanta jooga oo wax horumar ah noloshiisa aan ku soo kordhinin 20 sano ka hor markaad is arkayseen qorshihiisa wuxuu ahaa qorshe aad u qurux badan oo aad ma aad dhihi kartid intaas in ka badan buu qofkan keeni karaa laakiin maanta markaad is aragtid inuu ku dhahay meeshaad shalay iga tagtay un baan joogaa wax iska kay bedelay ma laha adi maxaad qabatay markaad u sheegtidna wallaahi waqtigaaga waad ka faa'iideysatay saas buu ku dhahayaa waqtiga adiga aad ka faa'iideysatay isaga kama faa'iideysanin miya isaga caqabooyin nooceeda ayaa ku timid oo waqtiga uu dib uga dhacay qof waxaad arkaysaa 20 sano ka hor meeshuu joogay kadib dhacay meeshuu joogay wuba ka sii hooseeyaaba zigzag waad aragteen waa line soo maaha linekaas qof baa haysta oo si fiican u socda qofna kor buu u kacaya hoos buu u soo dhacaya qofna khadkii wuba ka dhacayaaba oo dhinaca zero buu aadaya dhinaca negative-ka qofka marka 20 sano ka hor meeshii aad ku ogeed ka hooseeyo oo khadkii ka dhacay qaabkee buu khadka uga dhacay qofkan 20 sano ka hor meeshuu joogay un taagan cimri unbaa u kordhay mooye wax kaloo faa'iidaan u kordhinna maxaa sababay qofkan 20 sano ka hor meeshuu joogay meel ka fiican joogana maxaa sababay saddexdaas ayaan markaas barbar dhigaynaa qofkii horta 20 sano waa tusaale ahaan yaa 20 sano kaliya taha soo qaadan adiga daawadaha ay fiirsanayo ama 5 sano ka dhigo ama 10 sano ka dhigo waxa waaye waqtiga ugu dheer 10 sano ka dhigo waqti ugu yarna 5 sano ka dhigo waqtiga ugu dheer 10 sano ka dhigo waqtiga dhexena 5 sano ka dhigo waqtiga dhowna 2 sano ka dhigo qofka marka 20 sano ka hor aad aragtay oo noloshii ka dhacay qaabkeebu nolosha uga dhacay taas ayaan fiirinaynaa qaabka nolosha uga dhacay ayaa waxay tahay hadafkii uu rabay inuu rumeeyo muuna ku dadaalin koow waxaa laga yaabaa inuu rabay inuu kaba soo qaad waxbarashadii uu dhameeyay kaba soo qaad high school buu ka soo baxay inuu jaamacad tagu rabay maybe jaamacadii meena u suurtagelin oo dhaqaale muuna u helin waxaa la rabay marka inuu irid kala gargaraaco irid kalena muuna gargaraacin halkii buu fadhiyaa marka wuxuu ku nool yahay gacan caawimaad uu ku nool yahay ama wuxuu ku nool yahay Soomaalidu waxay dhahaan shaxaad ama wuxuu ku nool yahay waxaad maanta hesho cun bes bal laga yaabaa waqtigiisa inuu u badan tahay maalaayacni markaan leenahay ama meel fadhi ku durur ayuu aadaa qof dumar ah haday tahay waxay ku mashquulsan tahay bani aadankaas kale iyo danaheeda ma dana kale ku mashquulsan tahay oo noloshiiba khadku ay ka dhacsan tahay qof arday haduu ahaana wax u soo kordhay ma laha meeshu waxbarashadu ku istaajiyay ayuu joogaa marka shaqo ma qabto qofkan koow dad gacantiisa ayuu ku nool yahay laba waxa u saddexeeyo cibaadadii xitaa way nusqaantay oo kama muuqato sunnadii rasuulka kaleey salaatu salaam iyo cibaado badan oo marka ku soo jiidanaysa kama muuqato bal akhlaaqiyan buu hoos u dhacsan yahay akhlaaqiyan markuu qofku hoos u dhacana noloshiisa 80% waxa la dhihi karaa ama 90% qofkaas khadka uu ka dhacay mar
qofka waxaa balansi garanaya waqtigiisana u dhowraya akhlaaqda wanaagsan waan soo gali doonaa qaybta akhlaaqda marka qofkan khadkii uu ka dhacay wuxuu joogaa marka 20 sano ka hor meesha aad ku aragtay oo high school bas uu dhameeyay laakiin markaas akhlaaqdiisa way wanaagsaneed qof wuxuu ahaa hamile maanta laakiin hami ma laha hamigiisa waa dhintay wax baad samayn kartaa mustaqbalkaaga horumar baad ka keeni kartaa ma aaminsano akhlaaqiyan wuu hooseeyaa oo hadalladu ku hadlayo iyo fadhi ku dururku joogo iyo maalayacniga ayaa ku badan waxaa laga yaabaa inuu qof iska raaco boqolkaa shilna markaa shaaha laga bixin inuu ku qanacsan yahay laakiin inuuna u soconin halkee baad rabtaa inaad gaadhid marka hoos buu usii dhacay oo wax dhaqaale iyo xagga tacliinta horumar iyo guur iyo awlaad iyo baabkaas dhan waa ka xidhan yahay waxaa jira markaa 20 sano ka hor qofkii aad aragtay meeshiisii hoos buu uga dhacay akhlaaqiyan wax kasta laakiin waxaad arkaysaa qof kale oo meeshii uu joogay unbuu joogaa kaba soo qaad hal tukaan buu lahaa qofkan tukaankii unbuu ag fadhiyaa marna wuu khasaaraa marna intii unbuu joogaa laakiin wax profit oo ziyaado oo tukaankii tukaan kale u dhalay ama maanta ilmihiisii buu ka bixin karaa jaamacad ama maanta maxaan ku dhahaa guri buu ka dhistay ma dhahaysid waa 20 sano ka hor halkii tukaan oo dhex fadhiyay buu dhex fadhiyaa wax uu ku daray oo ilaahay abuurtay ma jiro bal waxaa laga yaabaa mararka qaarkii inay kiradii tukaanka xitaa inay isbixin weyso oo magac ahaan inuu tukaanka u dhex fadhiyaa macquula tusaalaan usoo qaadanaya bal waxaa laga yaabaa intuu deyn galo oo khasaaro uu keeno khasaarihii in lala bixiyo oo mararka qaarkii xitaa negative buu noqonaya oo hoos buu u dhacayaa marka meeshan unbaa taagan tahay maxaad ku bedeli kartaa isma dhahayo badiil kale ma raadinayo kaliyaata waxay kaga dhigan tahay tukaankan baan lahay tukaankan baan dhex fadhinaya ama tusaale kale waxay kaga dhigan tahay waxaan ahay professional oo waxaan ahay maxaan ku dhahaye saloon ah saloonkan un baan ka shaqeynaya tusaale 20 sano ka hor waxaad ku jirtay qof baad u shaqeynaysay meesha un baad joogtaa qofkin baad u shaqeynaysaa maadan ku fikirin saloon adiga aad leedahay inaad samaysatid tusaale waxaad tahay wariyanimadii shalay lagugu qabsaday meesha un baad joogtaa laakiin professional kale oo wariyanimadii kaasii sarreysiin karta maadan ku darin because shalay fiiri maadan shaqeynaynin mushaahar maadan helin laakiin maanta waad shaqeynaysaa mushaahar baad helaysaa kuma xisaabtamaysid mushaharkaygan maxaan ku daraa oo waqtigayga maxaan uga sii faa'iidaystaa kuma daraysid halkii un baad joogtaa waxaa laga yaabaa meeshaad sugaysay positionkaaga in la dalaciyo qof kaloo kaa aqoon badan in la keeno oo positionkaad adiga joogtay balkaasii sarreeya inuu qabsado oo markaas xitaa adis xumaysoo dhahday intaasoo sana shaqeynaya maxaa aniga la ii dalacin waaye sababta lagu dalacin waaye waxaa waaye qofkan kale ee la dalaciyey ee meesha imaaday ayaa waxaa waaye professionalkiisa iyo experiencekiisa labadaba uu kaa sarreeyaa adi marka experience ahaan waxaad joogtaa waxaad tahay bachelor holder ayaa tahay laakiin qofkan experiencegiisa iyo maxaan ku dhahaye levelka educationka ayaa master holder waaye marka uu kaa sarreynaya laga yaabaa inuu kaa dambeeyo qofkan waa u soo socdaa marka meeshaadi jugjug meeshaadi joog wax ma faa'iidaysid bal mararka qaarkood dhinaca khasaaraha ayaad xigtaa waad ligliganaysaa isma dhahaysid waxaan baad safe garaysay business risk wax kala gal tukaan baad leedahay maanta lacagatan intan bishan intan ururi sanadkan intan bay noqonaysaa dhul ku gado ama tukaanka wax kaloo ka duwan ku samee kuguma jirto ilmahaagii baa laga yaabaa inta high school wada dhameeyeen jaamacaddii inaadan ka bixin karin oo xitaa qaaraan aad u raadinaysid dad adiga kaa dambeeyey hal tukaan furtay 2 tukaan 3 tukaan maraya ilmahaagii inay ka bixinayaan baa macquula adiga inaad ka badin laadahay kiradii iyo maxaan ku dhahay nolol maalmeedka aad ka badin laadahay qofkana uu kaa dambeeyey dabcan marka waxaa laga yaabaa 20 sano ka hor inaad diinta islaamka inaad dhiganaysay oo aad soo gaadhay kaba soo qaad tafsiirka inaad dhamaysay aad rabtay inaad axaadiista inaad ku dartid laakiin maadan ku darin meeshuun baad joogtaa hadafkaagana wuxuu ahaa ilaa Bukhari inaad dhamaysid umuhaata sitaad ku dartid professional axaadiista loogu iman inaad noqotid laakiin jugjug meeshaadi joog halkiin baad joogtaa maxaa kugu dhacay qaabkeeba dib u dhacday waa baab kale qof waxaad arkaysaa marka 20 sano ka hor isku level aad ahaydeen isku madarasaad ahaydeen ama ganacsi haday noqoto isku mara tukaanka furateen ama hadii high school ay noqoto isku mara dhameyseen qofkaas marka saddexdiinaba kii 20 sano ka hor nolosha gadaal uga dhacay iyo kan 20 sano meeshiisa uu joogo marmar nusqaanta ay ku imanayso iyo adigaba hal mar baad isla soo jaan qaadeen ama iskuulka isla dhameyseen ama madrasada isla dhameyseen ama ganacsiga isla bilowdeen hal mar ayaad marka meel aad ka soo wada baxdeen isku hadaf baad ahaydeen waxaad ahaydeen dad hiigsi wanaagsan leh oo nin kasta inuu hadda bulshada inuu meel fiican inuu ka soo muuqdo oo bulshada in wax ku soo kordhiyo rabe ayaad tihiin qofka marka 20 sano ka hor isku meel aad joogteen maanta waxa laga yaabaa qofka adduunka u talinaya inuu yahay oo yaani shakhsiga meeshaas uu joogo ayuu ka muuqdaa
hadduu dhakhtar yahay waa qof professional oo lagu tashanayo adduunka dhan ay u yeedhanayaan la dhahayo qofkaas baa full experience leh waa expert waa qofkaas professionalkiisa levelkii ugu sarreeyay buu joogaa loo baahanayo haddii uu qofku yahay qof ganacsato ah waa qof ganacsigiisa heer uu gaadhay tukaamadiisa dhowr tukaano ay dhaleen ama dhismo ayuu galay ama wuxuu galay land ayuu galay ama business hot cake ayuu ku jira halkii mare la soo dajiyay intaasoo faa'iido ah laga dhalinayo ayuu joogaa ayuu leeyahay caruurtiisa hadda aragtid waa caruur nidaamsan haddii ilaahay markaas qof guursaday oo yahay gurigiisa waxaa ka muuqda tusaaluhu isagu yahay baa ka muuqda qudwatu xasana يعني qofkan ilmihiisa tusaale uu yahay ilmihiisa waa ilmo waxbarashada ku dadaalaya iskuulkii number 1 ku ah dhinaca diinta number 1 ku ah akhlaaqda dariska iyo guriga number 1 ku ah way ka muuqataa waqtiga markaa fiiri adiga kaliya haddaad isku koobtid waqtiga ciriiri buu kugu noqonaa oo kugu koobnaanaya laakiin haddaad expand haddaad waqtiga ballaarisid dhinaca waxaad ku haysidna aad xoog aad u qabatid dhinaca waxaad ku haysidna xoog aad u qabatid juhdi aad bixisid dadaal badan aad gelisid waqtiga isaga ku caawinaya laga yaabo waqtiga marna dadka uu caawiyaa marna dadka ma caawiyo waa qaab oo ma taqaana isgarab socda marna hoos buu ku ridaya marna hore ayuu ku wadaya marka waqtiga hadduu ku caawin waayo miyaad quusanaysaa miyaad iska niyajabaysaa miyaad iska fadhiisanaysaa aayadda marka suuradda maxaan ku dhahay wal casri ilaahay waqtigii uu ku dhaartay soo maaha waqtiga ha ku dhaartee wal casri inal insaan la fi khusr dadka dhan waxay ku sugan yihiin khasaaray ku sugan yihiin waa khasaaro nooc marka dadka dhan khasaaray ku sugan yihiin nacam illa alladina aamanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr illa ma ha ku amalka wanaagsan sameeyay oo isugu dardaarmay xaqa iyo sabirka marka noloshan waa la daalan dhacaysa kan successful ka before 20 years 20 sano ka hor meeshas joogay oo hadda heerkan gaaray iskamuna gaadhin hurdamuna ku gaadhin intuu meel iska fadhiistay mucjizo mayna ku soo degin oo lacagta saas u kala daadsan muuna guranin wuxuu ku soo gaadhay qof wuxuu ahaa samir badan samir buu ku soo gaadhay wuxuu ku soo gaadhay juhdi iyo dadaal wuxuu ku soo gaadhay illa alladina aamanu wa amilu salihati amal wanaagsan oo ilaahay jecel yahay buu ku soo gaadhay marka haddii qof nolosha ka daalan dhacaya tahay oo noloshaada ilaahayna ku xidhnayn oo wuxuu ilaahay jecel yahay aadan sameynaynin de ilaahay qofkaas qof uu caawinaya ma noqonaysa laakiin qofkan dadaalaya raali ahaanshaha ilaahayna ku dadaalaya inuu adduunkan yoolku leeyahay ka gaaro aakhiradiisana badbaadiyo ku dadaalaya laazim meel buu soo gaaraya marka maxaa laga rabaa adiga inaad noloshaada inaad juhdigaas iyo dadaalkaas inaad ku soo bixisid aayad kale oo suuratu baqara 155 ayaa wuxuu ilaahay leeyahay wala nabluwannakum بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال وأنفسكم ثمرات وبشر الصابرين فيري إلهي waxaa laga yaabaa inuu ku itxaamo kan 20 sano ka hor meeshii uu joogay hadda horumar ka soo gaaray ilaahay inuu itxaamay baa macquul ah laakiin ilaahayna ma itxaamee juhdi iyo dadaal iyo sabr wastaciinu bisabr wasalaatu ilaahay dhaa sabr iyo salaada kaashada qofka marka waxa laga markii jug ku dhacdaba qof ilaahay kaashanay fayda azamta fatawakkal ala allah qof yaani markasta oo dhibaato ay soo gaadho ilaahay tala saaranay ilaahay bariye sadaqada bixinay xalaasha ku dadaalay juhdi badan ku xidhnaanshaha ilaahay ku bixinay aaminsan marka inuu ilaahay inuu dhibaato kasta oo ku timaado ilaahay inuu faraj inuu u bixinay aaminsan oo markii uu xanuunsaday kaba soo qaad qofkan uu xanuunsaday kan 20 sano ka hor meeshan uu jooga dib uga dhacay waxa laga yaabaa dhibaato yarintay ku dhacday dhibaatadaas uu xamili waay uu ku samri waay inuu khadki ka dhacay kan meeshaas iska joogana waxa laga yaabaa hal mar maadaama dhibka uu ku dhacay inuu cabsaday oo isdhahay mar dambe hadda meeshan uu noqoto dhibkan baa ka soo gaaraya uu riskiga qaadan waaya qofkan waxa laga yaabaa inuu ilaahay ku itxaamay maxaan ku dhahaayay shaygaas oo kamid ah inuu ilaahay xoolaha ka qaaday kadibna naftiisa intuu xisaabay wixii ka khaldan hadana soo laba tabcay waxa laga yaabaa ilaahay inuu jirro ku itxaamay jirooyinkii waxaa laga yaabaa sadaqiya alla bariyo quraan inuu uga gudbay haddana hadafkiisii inuu ka dhabeeyo last year waxaa laga yaabaa 2019 inuu xanuunsanaa oo rafaadsanaa 2020 gan hadda la joogayna oo hadda gabagabadiisa la marayana inuu juhdi badan soo bixiyo meel soo gaadhay ayaa macquul oo una isdhihin waad xanuunsatay qeyrkaaga way ku dhaafeen maxaad qaban kartaa iska fadhiiso inuuna isdhihin uu isdhahay hadafka aan leeyahay muxuu yahay calaamad su'aasha waa halkaas ama xanuuso ama maalka leedahay ka dhamaado ama dhibaatadii doonaha kugu dhacdo laakiin qofkan waa qof mar kastaba isweydiinaya hadafkaagu muxuu yahay maxaad rabtaa inaad samayso
aayadan marka waxayna xasuusinaysaa wax kasta oo dhibaato haddii ay nagu dhacdo qaabkan u wajihi lahayn ayaa waa inay noqotaa qaab positive ah. waa very hardship, waa yani itixaan baa ilaahay nama itixaamo, ilaahay baan ka magan galnay, ilaahay baa markaa itixaan yar kugu riday ama xanuun ama maal la-aan. dismolar haddaad noqotid oo dadkii aad ka go-did oo depression aad isku ridid oo buuq aad isku furtid ood dhahdid wax ii hagaagayba ma laha, negative way ayaad aaday, dhinaca negativeka ayaad aaday, positive maadan aadin. positiveka haddaad aadi weysid marka qofkii nolosha ka dhacay baad noqonaysaa oo tusaalaan usoo qaatay 20 sano ka hor meeshuu joogo uuba kasii dib dhacay. waxaa laga yaabaa qof inaad tahay maasha allah tabaarakallah, tallaabadu qaadaba successful ah. qof waxaa laga yaabaa inaad tahay fahankiisu sareeyo, yacni qof dhinacii loo diraba kaafiye ama kaafiso, dhinacii lagu diraba waad kaafinaysaa. qofka noocaas oo kale marka caqabado badan ayaa ku dhacaya. kow iliya carab maasha allah maba lagu dhahayaba waxaa kusoo wajahaya marka caajiskii ugu dambeeyey. rasuulka calayhi salaatu wasalaam caajiska aad buu uga magan galay, ilaah baan ka magan galanaa. caajiskii ugu dambeeya kusoo wajahay, tallaabo ma qaadi kartid. waxaad rabtid inaad samaysaba culays baa lagaa saaraa, waxaad rabtid inaad qabatidba waa lagu shidayaa, xanaaq baa ku fuulan. haddii lagula hadlo adiga dhanba waxaa tahay qof bismillahi raxmaan raxiim neerfihii ay kacsan yihiin, depression waxaad ku jirtaa qofna uuna kula xallin karin. heer waxaad taagan tahay quusasho ood leedahay saan baan ahaan jiray, qof khataraan ahaa, wixii dhan waa iga kala halaabeen, saan baan. marka waxaad ka sheekeynaysaa oo negativeka aad ku jirtid. hardshipkii oo ahayd walanabluwannakum bishayin waxaa lagugu itixaamay caajis oo min alcuyuun iyo min alxasad ka imaadaa lagugu itixaamay. ilaahayna ma itixaamo. haddii marka aad fadhiisatid dee waad khasaartay oo hoos baad u dhacday. laakiin haddaad dhahdo okay ishu waa wax jirta, xasadku waa wax jira, maxaan uga gudbi karaa? taqwada ilaahay, alla bariga, quraan saar, inaan aniga quraan isku akhriyo, inaan dadaalo, inaan ilaahay in badan u dhawaado. ilaahay waxaa laga yaabaa markaa juhdigaas iyo tawakalkaas iyo naxariistaas ilaahay aad ka raadinaysid iyo alla barigaas inuu ilaahay wixii dhan intuu kaaga khafiifiyo, meeshii aad shalay joogtid inaad ka soo kacdid, hadafkaaga meeshaad u socotid inaad gaadhid. marka aayaddaas yacni wax kasta oo dhibaato oo kusoo wajaha inaad ka gudbi kartid, oo marka aad kaga gudbi kartid samir, aadna xasuusanaato ilaahay adduunyadan intaan joogno shay kamida wuxuu ilaahay adduunyadan abuuro wax kamida inuu ilaahay nagu itixaami karo. ilaahay wuxuu kugu itixaami karaa awlaadaada, ilaahay naguma itixaamo. laga yaabaa awlaadaada mid kamida inuu kaa xumaado ood isku dhibtood isku rafaadiso oo hadafkii aad lahayd aad gaari weyso, waqti baa kaa dhumaaya. haddii markaad dhahdid qofka mesaan ku mashquula waqtigaagna saasuu kaaga dhumo, hoos baad u dhacday. laakiin dhib kastoo kusoo gaadha waa inaad isku garab wadi kartaa. waxaa laga yaabaa nin khatar oo maasha allah oo juhdi badan oo dadaal badan inaad tahay, laakiin waad guursatay, naagtaad guursatay baa kula hadhay, dee waxay kugu noqotay naag mucjizo ah. ilaahay baan idinka magan galaya ragga. waxay kugu noqotay markaa naag noloshii aan kula daadihinaynin oo adiga lugooyo kugu ah, garabkaagii kaa goynaysa. waxaa laga yaabaa inay itixaan ay kugu noqoto marka inaad isku mashquulisid. no way, waa inaad ilaahay baridaa, qoftan aad waanisaa saad uga gudbi lahayd marxaladaas. waxaa laga yaabaa gabadh fiican oo juhdi badan oo dadaal fiican oo ummadda ka dhex muuqato lagu qanacsan yahay oo la wada sugaya inaad tahay, laakiin nin itixaana inuu ilaahay kugu daray. family problem markuu yimaadana waa jirada ugu xun waay. marka gabadhii meesha wax ka qaban lahayd ama nafteeda horumar lahayd, frustration, depression, iyada dhan baa isku koobantay. laakiin haddii ay samayso dhinacan waxan baa iga halaabay oo lifekii aan rabay ma ka helin ninkan, laakiin badilkiisi maxaa samayn karaa? ilaahay baa bari kartaa. markaad ilaahay barisid waxyaalo kala badan oo aad qaban kartid ayaa jiro. maanta waad aragteen problem hadduu dhaco problem baan ku xalinaa, kuma xalino alla bari iyo waqtigan ilaahay keenay. waqti kaloo badilkiisa juhdi iyo dadaal intaan bixino maxaan uga gudbi karnaa marxaladan, kuma xalino. dhib baa imanaya, dhibkii dhib lamid ah. soomaalida waxay dhahday niman shantaa kaa reebin sharci kaama reebto. yacni dagaal haddaad qof la geshid waa inaad la dagaashaa, iska celisaa, saas keliya tumuu qofka kugu xishmeyn karaa. mushkilo kastoo waqti xaadirkan taaganna qofka kuma fikiraayo alla bari iyo sadaqo iyo juhdi badan bixi oo ilaahay u dhawow oo ilaahay bari, ilaahayna faraj kuu keena. laga yaabaa dhinacaas ma la aado. dhib baa dhacay soo maaha, dhibkaas oppositekiisa dhib kale oo qofkan aad kaga arsan karto ama aad ku lugeyn karto ayuu qofkii ku fikiraya. marka waxaa la rabaa mar kastaba inaan ku dadaalno cimrigeena iyo anagoo ka faa'iideysanayno waqtigaan haysano iyo caafimaadkaan haysano iyo free timekaan haysano, anagoo ka faa'iideysanayno mar kastaba inaan ku dadaalno samir si aan markaa waqtigaas uga faa'iideysan lahayn. markaa sanadkan haddii ahayd qof mushkilo soo wajahday, aad meel iska fadhiisatay ood caajistay ood niyo jabtay, ogow hadda ilaahay bishaaradiisa meel kuu taalo, waad soo kaban kartaa, waad ka soo kici kartaa.
adigoo markaa ku dadaalaysid tallaabooyin soo socdo oon kuu sheegi doono. waayahay xadiiskan ayaa yacni rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka soo arooray oo imaamu axmed laga soo wariyey ayaa wuxuu leeyahay 5 uga faa'iideyso istiin waqtigaan ku guda jirnaa 5 uga faa'iideyso. haye dhalinyarnimadaada waxaad uga faa'iideysataa markaad noqoto da ka soo qaad hadda dhalinyara tahay waqtiga aad cibaadeysan lahayd ilaahay raali gelin lahayd dhaqaale aad sameyn lahayd ilmahaaga juhdi aad ku bixin lahayd waalidkaaga aad waqti siin lahayd ayaa dayacday waqtigaagi markaad dayacday ayaa da'baad soo gaadhay hadda ayaad rabtaa marka inaad wax sameysid dee already waqtigaaga waad khasaarisay. waqtiga dhalinyarnimadana ilaahay waxyaalaha xisaabta kulay ku jirtaa oo lagu dhahayo waqtiga dhalinyarnimadaadi maxaad soo qabatay. waa aad bay meeshaas dhalinyarada inay ka fiirsadaan oo waliba uga fiirsadaan maalayacniga hadda lagu jiro ayaa waxay tahay qofba TikTok buu soo galay maanta dhan kulay qaybta social media-ga qaabka looga faa'iideysto iyo qaabka loogu khasaarayo waan inoo keeni doonaa. laakiin tusaale yar baan ku soo daray oo ah qofba maanta wuxuu soo galaa TikTok maanta dhan hees baa u daaran adduunyo kale ku jira qof kale TikTok arkaya qofkan iska bareeje qofba YouTube soo galay maalayacni uu ka hadlaa qofkan iska bareeje wax reaction la dhaho maanta dhan waa la isku mashquulaa iyadoo la ilowsan yahay labada garab malageedii saarnaa kii khayrkii qori lahaa waaba iska quustay waa iska fadhiya kii sharta qorayay baa tik maanta dhan waxaa lagu qoray qiila waqaal waqtigaaga inaad khasaarisay. marka waqtiga dhalinyarnimada especially dhalinyarta maanta social media-ga ku mashquushay iyo dadka fiirsanaya oo ku sii taageeraya maalayacniga fiiri kan khaladka sameeyay iyo kan khaladka sii buunbuuniyay isku dambi baa leeyahay. marka ha isdhihin oo qofkan ba khaladka galay isagu ilaahay xisaabin doona maya adigan fiirsanaya nimcadu ilaahay ku siiyay oo indhahaagan ah oo loogu talagalay inaad quraan ku akhriso inaad waxyaalo kale oo positive aad ku akhrisid maanta dhan indhihii baad dhaawacaysaa qalbigii baad dhaawacaysaa waxaan xunad fiirsanaysid indhihii way daalinayaan qalbigii way daalinayaan haddaad dhahdid khayr samee qalbigii khayr ma ku jiraba sababta maalayacnigii ayaa ka buuxsamay. marka dhalinyarada iyagoo maanta awoodeen wax akhriyaan inay adduunka wax ku soo kordhiyaan inay positive badan la imaadaan ayaa waqtiga waxa ka dhumiyay qiila waqaala iyo maalayacni iyo social media-ga. qaabka social media-ga aad u maareyn kartaan insha Allah mar kale waxaa lagu dhahay qodobka labaad oo isla xadiiskii ah caafimaadkaaga uga faa'iideyso xanuunkaaga. waxaa laga yaabaa sanadka dhan aad caafimaad qabtay cibaado badan inaadan sameynin khayr badan inaadan sameynin dadaal badan iyo juhdi badan noloshaada inaadan ku bixinin horumar fiican inaadan gaarsiinin sanadka kale waxaa laga yaabaa jiro jub ama accident inaad gasho ama jiro kale inay kugu timaado halkaas aad iska fadhiisato oo marka aad ka shanlayso alla sanadkii hore maxaa waqti haystay alla maxaa waqti soo dayacay. waqtigana waxaa la dhahaa waa sidii webi biyo ka soo dhacayo oo kale tusaale waaye webiga biyahan markuu webigu ka soo shubmaayo haddaad gacantaada saan dhahdid haddana mar labaa saan aad dhahdid isku biyaba soo qabanaysid waxaa laga yaabaa webiga marna xoog inuu u soo tuuro biyaha marna inuu biyo yar uu soo tuuro pressure-ga qaabku ilaahay uga keenayo marka biyaha labada mareed gacanta hoos dhigatay isku biyo ma soo qabanaysid. maxaan ugala jeedaa waqtigeed shalay haysatid maanta ma haysatid waqtigeed maanta haysatid berri ma haysatid. waxaa laga yaabaa marka waqtigaagan aad dayacday intaad caafimaadka qabtay aad cibaadeysan lahayd aad ganacsi sameyn lahayd aad horumar keeni lahayd aad ku dayacday waxyaalaha ilaahay raalli ka ahayn inaad xanuunsato markaad xanuunsatid marka maxaa dhahaysaa waan xanuunsaday miyaad dhahaysaa maya xanuunka waa qayb ka mid ah ilaahay uu ku xasuusinayo nimcadu ilaahay ku siiyay. qofba waxaa laga yaabaa inuu dhaho waan jiraday maca salaama khadku ka dhacaya saas lama rabo. haddii aad xanuun dareentid wuxuu doonay ha noqdo xanuunku doonay ha noqdo inaad isdhaahdo okay waa nooc min itixaan ka mid ah xanuunkan qaabkan uga gudbaa inaad marka naftaada aad ka fikirtid ma xanuun jismiyan ba ma xanuun maskax oo depression kugu abuuray oo problem maskaxda ka qabsaday ma wax kale oo ku mashquuliya wuxuu doonay ha noqdo inaad ka horta cibaadada xoog saartid alla bariga xoog saartid is xisaabisid aad dhahdid okay maxaan uga gudbi karaa xanuunkan markaasna promise inaad samaysid ballanqaad soon iyo waxaas ilaahay aad ku baridid jawigan haddii aad ka baxdid isbedel fiican naftaada iyo dadka kugu hareeraysanba inaad u keeni doontid. waxaa lagu dhahay ka faa'iideyso markaad maalqabeenka tahay uga faa'iideyso markaad faqiir noqotid. dad baa laga yaabaa maanta maalqabeen inay yihiin say dooniba ha ku keenaane maalqabeen inay yihiin ma xasuusanayaan markaa ehelkii ma xasuusanayaan khayrkii ma xasuusanayaan agoontii ma xasuusanayaan masaajidadii ma xasuusanayaan imaamkii iyo dadkii diinta dadka baraayay ma xasuusanayaan
fuqaradan meesha degan maxaad u samaysaan maalkaas ay haystaan ayaa waxa ku noqonaya tacajub way iscajab gelinayaan kibir ay bilaabayaan takaburkana ilaahay bas u sugnaaday ilaahay wuxuu dhahay kibirka waa izaarkayga waa go-ayga qofka marka ay ugu qabsaduu dhahay kibirka waa la dagaalaya ilaahay baan ka magan galnay dagaalkiisa qofka markuu hanti helo caafimaadna helo subxaanallah wuxuu noqonayaa in yaroo ilaahay u naxariistay mooy qofka ugu kibirka badan markaas waxaa laga yaabaa hantidiisaas in loo isticmaalo ummad in lagu burburiyo in loo isticmaalo dad soo kobcayay in lagu ciribtiro qof baa laga yaabaa hadda inuu soo daalan dhaco isleeyahay bal booskan gado tusaale waxaa laga yaabaa booskaas hadduu gato inuu qofkaas heer gaari lahaa ummad faqiir oo isaga ku hareeraysanna wax ugu tari lahaa wuxuu dhahaa ku falis meequu qofkan bixinaya wuxuu bixinayaa $20,000 anaa $30,000 dhiibaya dhac waa xaaladda maanta jirta marka fiiri wealthiga maanta dhaqaalahaad haysatid haddaad uga faa'iideysan weysid siduu ilaahay jecel yahay yeeli weysid ilaahay wuu kaa qaaday ilaahay maalintuu kaa qaadana waad ka shanlayni waxaad soo xasuusani wixii khayr ku dhaafay oo dhan waxaad soo xasuusani wixii dembi aad samaysay oo dhan because saacaddaas iyada ah naftaada iyo shaydaan baa ku cajabiyey oo labada dhinac sacabka kaaga tumaaya markaasaa adigana shaydaankaas iyo naftaada intaad israacisid ayaad khadka ka dhacaysaa markii hantidii lagaa qaadana shaydaankii waa kusoo miir noqona wuxuu ku leeyahay markaad xoolaha haysatid waxaas maadaan samaynin waagaad xoolaha haysatay sidan maadaan yeelin markaasa waxaa kugu furmaya tashwiish iyo walaac iyo jiro markaa kaa dhamaato lacagtii jiro iyo maxaad kugu kaa darsamay faqrigaas kugu kaa darsamay jirada waxaa laga yaabaa physically caafimaad inaad qabto iska socotay laakiin maskaxdii way isla hadlaysaa saantaa leedahay marka jidka lagugu arka xitaa waxaa lagu dhaha alla kii hebelahaa tii hebleahayd xoolaha haysata xoolaha ka dhamaaday wallahi way samir weyse wataas way isla hadlaysa alla wuu isla hadlay waashaa lagu dhihi marka dhaqaalaha aad haysatid horta dhaqaalahan muxuu yahay xaguu ka imaaday ma xalaal baa ma xaraam baa waa baab kale laakiin dhaqaalaha markaa haysatid haddii foqorada kugu hoos nool oo qaraabadaada ay ka kow yihiin hoos intaad u fiirisid kan tukaan yar u fur bishan zakadan meeshan ka soo baxaysa qofkan ku si oo waa kan sanadka zakadana soo baxdee waxaas ku qabso oo markaa faqriga inta lala dagaalo qofkan kor loo soo kiciyo qofkan markaa hantiduu haystay muxuu sameeyey ilaahba ugu dhawaaday maanta hadduu dhinto saacadan hadda qofka hantiilaha ah oo ilaahay mulkiilaha ka dhigay ilaahba mulkiga iskale waxaasoo dabaqyo tirinaya saacadan hadduu dhinto intii uu baxsaday weliba intii uu baxsaday in istustusa iska reeb intii ikhlaaska ahayd bas ayaa usoo haraysa marka maanta haddii uu ahaa qof agoonta quudinaya hadduu ahaa qof masaakiinta raximka ku hoos nool wax siinaya markuu dhinto intaas ummadaaba usoo duceynaysa oo ah sadaqa tujaariyaba kuu noqonaysaa waan ku dheeraaday qodobka afraad ayaa wuxuu yahay waktigaaga friiga ama waktigaad haysato uga faa'iideyso waktiga aad preoccupied yani waktigaad noqonaysa jam waxaa laga yaabaa inaa hadda gabadh aad tahay maasha allah kaale arag waktigaaga aad iskaga dhumisay sii soco soo soco markaad hooyo noqotid baad rabtaa inaad adduunka ka daba gaadhid kan qabo hooyaad noqotay mas-uuliyad kale kugu soo biirtay ama tusaale qof waxaad tahay dhalinyaro waktigaaga intaa dhalinyarada wax fiican maadan qabsanin aabbaad noqotay ilmihii bariiskoodii ilmihii tacliintoodii ilmihii caafimaadkoodii jaan baad noqonaysaa ama tusaale qof waxaad ahayd maxaan ku dhahaye waktigiisii inuu wax badan barta rabay waktigu friiga ahaa laakiin muuna ku baraarugsanayn marxalad kale markuu soo galay oo jaam ah ayaa wuxuu dhahaya alla waxaan u baahnaa computer software inaan baran lahaa IT qaybtaasaan u baahnaan lahaa waxaan u baahnaan lahaa inaan dhaqaalaan waxaas barto 100 program kusoo dhacaya 100 program kusoo dhacaya hadduu rabaa inuu barto laakiin hadda maxaa waa wajaam garaysan ma baran karo waqti uma hayo waqtiga u hayayna muuna ka faa'iideysan waxaa lagu dhahay dhimashadaada uga faa'iideyso nolosha yani noloshaada uga faa'iideyso dhimashadaada intaadan dhimanin kulli waad dhiman doontaa qabri baa lagu geyn doonaa intaadan dhimanin noloshaada uga faa'iideyso waa macnaheeda kulli waa dhiman doontaa oo qabri baad geli doontaa oo xisaab baad la kulmi doontaa ilaahay baa xisaabtaas noo fududeeyo xisaabta qabriga wixii aad kala kulmi lahayd hadda sii diyaarso maanta markii lagu dhaho heblaayo waa la aroosaya hebel wuu aroosaya maxaa la isku diyaarinaya guriga in la qurxiyo alaabo nooc kale la soo dhigo hebla gurigeeda waxa yaala mar rab wax ka duwan rab bismillah ma sha Allah kharash baa la gelin guriga waa la qurxinaa waa la qurxiso ma guriga ha wad soo degaysaa laakiin gurigaagii aakhir hadda u dadaali weysid oo sadaqo iyo tasbiix iyo quraan iyo la kacabsi hadda ku dadaali weysid de wax maadan ila hormarsanin soo marka dhimatid
gurigaagii saxda ahaa oo kii aad u hooynaysay wax kaa horey ma laha marka intaadan dhimanin uga faa'iideyso noloshaada intan aad noloshahay oo noloshan adduunyada aad ku mashquulsan tahay tii aakhirana uga faa'iideyso xadiiskaas markaa runtii waa xadiis dhammaystiran xagga waqtiga haddii la fiiriyo dhinac kasta waa laynaga tusiyey laakiin man yuridullah khayran wafiqhu fi diin qofkii ilaahay khayr la maago diinta ayuu waafajiya diinta waafajiya macnaheedu ma inta diin baratid diintii baad waafaqday maaha wax kasta oo khayr ku jiro ayuu ilaahay ku waafajiyo waa macnaheeda marka shantaas xadiiska inoogu macneynayo shayga kale uga faa'iideyso qofkii ilaahay u dhammaystiro fahanka oo dhageyso ku dhaqan ilaahay ku deeqo maasha Allah uu haystaa qofka marka shanta xadiis asiibi kara oo shanta xadiis shanta halka xadiis shanta ku soo aroortay shanta su'aal ku soo aroortay ka faa'iideysan kara waa qof noocee waa qof maxaan ku dhahaa self discipline waa qof akhlaaqdiisa ilaaliyay akhlaaqda markaad ilaalinaysid subhanallah akhlaaqda dhinacee laga ilaalinayo haddii aad tallaabo qaadid waxaad isleedahay waxaan ilaahay raalli ma ka yahay haddii khalad inuu kaa dhaco waxaad dhahaysaa astaqfirullah waa istighfaarsanaysaa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam isagoo dembigiisii hore dembigiisii dambeba la dhaafay ayaa haddana waxaa soo aroortay 2 riwaayad oo aan la yidhi maalintii 70 mar buu istighfaarsan jiray riwaayad kale waxaa kusoo aroortay maalintii 100 mar buu istighfaarsan jiray annaga markaa halkeen joognaa tallaabo kastood qaadaysid markaa discipline waa tallaabo akhlaaq وإنك لعلى خلق عظيم رسولك الله عليه الصلاة والسلام أخلاق ونكسم بكو سجناتي أخلاق مركز لقى شيكنا وحلا دها ونصف عمل كي جنود أتكو تجي لهيد وحلا دها أخلاق ده شيء أتقالوا أوا وحكستو قف كان سمينا مركز أخلاق ديس أيكو سلينا هادو هادلا وحوس له قولك كاسو بحايا قول ونكسم ميها هادو عمل قوانا وحوس له عمل كان رالي ما لقيها بدك كوها رسالين يكون يجيبنا يان لقيها بهذا لحن حنين لقاه كينيو qofka sidiisba hadduu qof dhowrsan yahay dhibaato badan buu la kulmayaa mar kasta noloshuu la daalan dhacaya sababtoo ah shaydaan baa meel kuu jooga naftaada meel kuu jooga dadkan kugu hareereysan oo dhan saad adigu dhowrsanta uma dhowrsana xaasid bay kugu yihiin ama waa dad rabaan inay ku dambaajaan ama khadka ka ridaan khadkooda ku soo galiyaan soo qofkan mar kasta tallaabo kastuu qaadayo hadduu ganacsanayo haddii uu yahay marriage qof guur ku dhex jira hadduu yahay dhinaciisa waalidka hadduu yahay dadka u shaqeynaya hadduu yahay dadka ula nool dhinac kasta wuxuu isleeyahay waxaan khayr ma ka soo kordhayo laga yaabo wax isaga khayr uu ka fikiray in lagu xumeeyo la ba'sa laga yaabo wanaag badan uu soo ku fikirayo in caqabooyin ay ku noqdaan sababtoo qofkii horumar gaadhaya in horta caqabo ku timaada qofkii meel iska fadhiya jugjug meeshaada joogo uu fadhiya caqabada xagee uga imanaysa meel uga imanaysa ma laha marka qofka noloshiisa successful ka ah oo la dhahayo qofkan ma sha Allah qofna waxa laga yaabaa inuu soo tadheeray khaladaad badan inuu ku jiro oo khadkiiba inuu ka dhacay laakiin hadana maal uu haysto caruur uu haysto aqoon uu haysto leedahay anigan ilaahay ku xidhan waxaan dhan ma haystay qofkan laakiin qofkaas waa loo soo tadheeranaya maalinta dhimatiin de isku xisaab ma tiidin ogow marka qofkan saanta ku jiro adiga ku dayn adi markasta waxa tahay qof ilaahay ka agdhow ma tahay marka qof markastaba raba inuu nolosha ka guulgaado guushaasna ay ku tahay culays sidaas markaa qaabkii baad uga bixi kartaa waxaad rabtaa sanadkii hore saad ahayd inaadan sanadkan soo socdo aadan ahaanin waxaad rabtaa shalay saad ahayd maanta inaadan ahaanin waxaad rabtaa inaad yoolkaaga inaad ka meel gaadhid oo naftaada inaad motivation inaad dhiirigelin u samaysid naftaada caqabooyinka ku haysta markaa maxaad kaga gudbi kartaa haddaad ganacsato tahay haddaad waxaad dooni tahayba caqabaa ku haysata waqtigaa inaad ka faa'iidaysatad rabtaa mana hor socotid oo kama faa'iidaysan kartid oo markaa tallaabo qaadid baqiiq waa lagu soo dib celinaya qaabkeed uga faa'iidaysan kartaa markaa waqtigaagan markaa haddii caqabooyinka noocaas ay ku haystaan oo maanta aad tahay qof tallaabadu qaadaba ay u hagaagi laadahay dhinaca cibaadadaada horta iska fiirine waxaad isdhahaysaa maxaa khaldan rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiis ka soo arooray oo saxiix bukhaari ah ayaa allahumma inni a'uudu bika min al-hammi wal-hazni wal-'ajzi wal-kasli wal-jumbi wal-bukhli xadiiska adigu waa dhameystiran kartaa xadiiskaas waxyaalaha caajiska lagula dagaalo ayuu kamid yahay caajis joogta haddaad qabtid xanuun joogta haddaad qabtid niyad jab joogta haddaad qabtid dayn aad iska bixin kari weysa haddaad qabtid cadow iyo xasad haddii ay jiraan waxaas oo dhan salaad subax markaad tukatid adoo tawakaltu cala Allah dhahayo niyadaadana ilaahay ku xidhay ikhlaasna ka dhigayo xadiiskaas
inaad ku celceliso allahumma inni a'uudu bika min al-'ajzi wal-kasl yani caajisnimadii iyo kasliga iyo wixii dhan baa yani aad kaga magan galaysaa tasbiixda istighfaarti markaad samayso tasbiixdii salliga aad samayso calayhi salaatu wasalaam quraankii loogu talagalay walow hal page ba ha noqday aad akhrisato fiiri maalintii waa inaad timetable aad samaysataa timetablekaas haba yaraatee 5 daqiiqo maanta nolosheeda maxaa ku soo korodhay xadiiskaas marka waa inaad laazimtaa haddii marka qof aad tahay juhdigu bixinay dadaalku bixinay wali ku guuleysan la oo aad u dhibaataysan min fadlika waxaad laazimtaa suuratu baqra laazim noloshaada kamid ha noqoto suuratu baqra waxay wadataa faraj badan ayay wadataa oo runtii si gaar aan uga hadli doono oo qof kastoo dhibaataysan rajooyin dhibaatadiisa uga baxo marka xadiiskan allahumma inni a'uudu bika min al-'ajzi wal-kasli oo dhameystiran qofka marka wixii dhibaato haystay wixii deyn iyo wixii mushkilo ku hareeraysan uu kaga baxaya xadiiska labaad aan ku sheegay oo la rabo ducada labaad oo la rabo rasuulka ka soo raaca calayhi salaam oo la rabo qofka muslimka caqabada haysta inuu uga gudbo oo self confidence inuu helo walwalkii walaacahayo inuu uga baxaya waxay tahay laa ilaaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin qofka inuu maanta dhan ku celceliyo afkiisa ayuuna ka bixin haduuna awoodina salaada subax iyo salaada maghrib markuu tukado meelaha fadhiisto 100 mar markuu salaada subax dhaho 100 mar maghribkii uu dhaho noloshiisa tartiib bay isku bedelaysaa laa ilaaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin wad ku celcelinaysaa carabkaaga salliga iyo istighfaarta iyo kalmadooyinkan aan sheegay hadii carabkaaga markasta ka qoyan yihiin dabcan qof waxa tahay xaqii Ilaahay u dhawaanaya marka kalmadan waxay ku siinaysaa self confidence maskaxdii dhan ayaa waxay ka dhigaysaa fresh adiga dhan waxaad noqonaysaa qof awood leh quwad leh ducada kale ayaa waxay tahay oo iyadana la rabo qofka inuu laazimo qofka successful inuu noqdo niyadiisa inuu xasisho rabo walaaciyo walbahaarka haystana inuu ka gudbo la rabo soo dhiirigelin u helo ayaa waxa weeye الله لا إله إلا أنت سبحانك الله لا حديث كاس وإيجا مقيا هاي وأنا كوسو قرية ماشى دعاء داس أيضا وحواي ودعاء شيء عجيب أيضا قلبي يحسر نساء وحيكب حنساء وحي مشكلة ضروران أي قلبي كب حنساء مركا فيري حدي أتهينا المشكلة كبحديد أو صاحبها إيش كيو قفيب البان لصوت الشنايا قفيب البان نبكن وشيجيا قفيب البان لا يهبل إلى تالي نو ثلاثة كوبات إله لا تشو taladaada koobaad ilaah u dhiibo taladaada koobaad ilaahay u dhiibo ilaahay ku ooy inta qof bani aadan ku ooyn lahayd ilaahay ku ooy inta qof bani aadan la tashan lahayd oo tala khaldan uu ku siin lahaa ilaahay adaan ku baryaya ilaahay oo arimahan ii kala fududeey talaabana ku dar alla bari intaan meel iska fadhistaan ilaahay baryaya meel intaan iska fadhistaan quraan akhrinaa meel intaan iska fadhistaan soomaya tasbiix baan sameeynaa laakiin talaabo kuma darayo la ma shaqeynayso taas sababtoo ah dad maanta masaajidada iska fadhiyo oo dad inay cunto siiyaan sugaaya iyo qof masaajidka intuu taga cibaadeysto oo soo shaqeysto wuxuu cuni lahaa waxna sadaqaysanaya kaasa khayr badan marka waxa laga rabaa inaad isku dartid talaabadii iyo ducadii iyo alla barigii shayga labaad ee rabo qofkan inuu yacni ku helo horumarka waqtigiisa qaabka uga faa'iideysan lahaa ayaa waxay tahay personal development qofka inuu sameeyo horumar naftiisa inuu ku sameeyo plan wax la yiraahdo qorshe inuu qorshe dejisto qorshe maalintii ah maalin kasta qorshahaygu waa sidan isbuuc kasta qorshahaygu waa sidan bil kasta qorshahaygu waa sidan sanadkii qorshahayga saasaan ka rabaa waa inuu dejiyaa uuna ka dhiga wax 5 daqiiqo aan ka badnayn haddii 5 daqiiqo uu ka badiyo dee uu dhacayaa qofkii ma awooduna awoodin buu isa saaray laakiin 5 daqiiqo markuu laazimo oo bahashii badato marka dambe iyadaaba istarayso waqti buu ku darsan doonaa wuu sii ballaaran doonaa laakiin marka hore oo dhibka aad ku jirtid daily waxaad ka dhigtaa 5 daqiiqo maxaan sameeyaa oo laakiin joogto ah maaha maantaan sameeyay berri ma sameeyna maaha waa inay joogto noqotaa marka muxuu sameeynaa qofkii horumarkaas oo ah inuu wax plan gareeyo qorshaha dhow iyo qorshaha fog iyo qorshaha dhexe laba qofka inuu aqoontiisa in wax ku soo darsado maanta dhan waxaan ku jirnaa YouTube iyo khad iyo waxaan ku jirnaa mala yacniga ka tag qaybta fawaa'ida aad maanta at least bal hal maxaadaro dhageyso ama wax adiga ku anfacaya Google garee qoro ku dhaqan wixii marka nafsadaada farax gelinaya ku practice garee qodobka kale ayaa wuxuu yahay haddii aad tahay qof marka decision aan qaadan karin qof go'aan aan gaari karin haddii aad tahay dadka indha qofka u milaysid inuu Ilaahay u dhow yahay oo daacad yahay la tasho dhibaatadana ay haysato marka qofka waxa laga yaabaa inuu waxyaalo qaarkood inuu kugu kaalmayo waqtigaaga inuu kugu caawiyo qaabka aad uga faa'iideysan lahayd waqti adiga mashquulta inuu khayrka kugu yeedho adi anyway qofka khayrka lagu og yahay wax leed ka faa'iideysaa sababtoo ah
xadiiskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka soo arooray ayaa wuxuu ahaa qofka ag jooga ninkan birta tumaayo biraalaha ah oo afuufaya birta iyo qofka ag jooga qof barfuun gadaya waa kala labo qofkan barfuunka gaday haddaad ag joogtid barfuunkaas caraftiisa kusoo gaargaaraysa waad jeclaysanaysaa meeshaas barfuunka carafta lagu gaday inaad joogtid baad jeclaanaysaa meeshan biraalaha birta tumaayana maanta dhan bufbufta ku hayn waxaa kaa soo gaaraya dab jac dhahayo oo adiga dhanba maxaan ku dhahaye ku haleynaya dambas iyo dab dharkaaga soo gaadhay iyo qofka bani aadankan waa saas oo kale qof waxaa laga yaabaa khayr kaa soo gaadhayo oo ku hagaayo oo diinta ilaahay ku jeclaysiinayo oo wixii kaa khaldan ku saxayo oo haddii dhibaataad ku dhex jirtana kula qayb qaadanaya inaad heshid marka the right person qofkii ay ku habboonayd arrintaas waa inaad raadsataa midda kale waxaa waaye self assignment inaad samaysataa shaqo joogto ah shaqo joogta waxay noqon kartaa ama gym baad aadaysaa waa inaad joogtaysaa laakiin waqti yar waa inuu kuu noqdaa ama waxaad bilowday cibaadadaas waa inaad joogtaysaa midda kale self assignment cibaadada joogtada waa inaad ku dartaa la xiriirka waalidkaaga waa shay qaali ah kullama waalidkaaga saaxiibaad ka dhigatid haddaad wiil tahay aabbaha hooyada haddaad gabar tahay aabbaha hooyada waalidkaaga aad u dhawaatid maasha allah tabaaraka allah wax kaa halaabay ma laha waalidkaaga markuu murugo kugu arko kuu duceynayaa markii aad successful noqotid adoo faraxsan u arkana wuu farxaya bal waxaa laga farxad inuu la ilmeeyo waalidkaaga qofka saaxiibkaaga laga yaabaa farxadii adiga kugu soo kordhay inuu ilmeen waayo ku dhaho congratulations bas intuu ku dhaho hambal inuu ka dhaho kaa tago laakiin qofka waalidkaaga markii aad wax wanaagsan aad samaysid uu ilmeynaa farxad buu la ilmeynaa markii wax xumaata aad samaysidna wuu kaa danqanaya waalidkaaga marka inaad xiriir joogto ah la samaysid ood ku darsatid waalidkaaga waxyaalaha joogtada aad samaynaysid ood la tashatid oo markaas aad ku dadaashid waalidkaaga ducadiisa horumarkaaga qayb ka mid ah inuu noqdo waxaa kale oo markaas loo baahan yahay waxyaalo ku dhiirigeliya waxyaalaha ku dhiirigeliya maxay noqon karaan raadso adiga wixii allaale wixii aad jeceshahay ood u maleynayso inuu ku dhiirigelinayo waa inaad raadsataa hadda tusaale haddii lagu dhaho adiga maxaa ku dhiirigelinaya markaan dhageysto maxaan ku dhahay maxaadarooyinka jacaylka aniga dhan waxaa noqonaya qof jacayl ka buuxa waxaa laga qof kale inuu dhaho markaan dhageysto maxaadarooyinka qaabka dadka sida wanaagsan loola dhaqmo aniga dhan waxaa noqonaya qof dadka inay wanaajiyaan ninba waxbaa dhiirigelinaya waxay doonay ha noqoto waa inaad raadsataa marka wax ku sabood garaya saboodku muxuu yahay saboodku waxay noqon karaan kutub ma waxay noqon karaan internetka inaad maxaadarooyin ka raadsatid ma waxay noqon karaan quraan dhageysi inaad samaysid ma waxay noqon karaan qofkii wanaagsanaan hadda aan ka sheekeynay wuxuu doonay ha noqdo wax ku sabood garaya waa inaad raadsataa dhinaca dhaqaalaha noqotay maaha dhaqaalaha haddaadan haysanin ilaahay baa kuu keenaya laakiin ku dadaal saaxiibkaad la saaxiibtay xitaa dhaqaalihiisa xalaal miya mase waa xaaraan qofka markasta maqaaxiyada kuu kaxeynayo kusoo cunsiinaya chicken iyo bariis iyo adduunyo xaguu ka keenay haddaad ku ogtahay qof dhacdhac inuu yahay iska ilaalisid ilaahay baa risiq xalaala kuugu bedelaya waan baahanahay wax looma cuno Soomaali waxa dhahdo waan baahanahay waqti looma cuno qofka marka waxa la rabaa dhinaca saaxiibtii rasuulku wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam qofka wuxuu yahay ayuu saaxiibkiisna yahay saaxiibkaaga xitaa wanaad fiirisaa ma saaxiib ilaahay ku xidhan ba mase waa qofkan maanta ay casuumay ma qof xoolihiisa xalaal yahay miya inta iska tagtid iska soo dharag maaha waa inaad dhinac kasta iska ogaataa biidni illah bari asxaabteeda aan jecelahay oo 5TV iga daawanaysa barnaamijka hab nololeed sanadkan saad ahayd sanadka dambe ha noqonin min fadlika aniga iyo adigaba waxaan u dardaarmayaa sanadkan wixii ina soo dhaafay waa ina soo dhaafay afallahu can ma salafa laakiin sanadkii hore wixii ku soo dhaafay oo maxaan ku dhahaye mushkilooyin ah ama dhibaato ah ama dambi ah waxaad uga gudbi kartaa istighfaarta iyo tasbiixda iyo ilaahay u dhawaanshaha sanadkan soo socda maxaa tallaabo ku qaadi kartaa wax allaale waxaad u malaysid inuu khayr yahay oo tallaabada ugu fudud kuu fududeynaya ku dhaqaaq ha fadhiisan haddii aad tahay qof maskaxdii ka jaamgaraysan qof wanaagsan raadso oo nafis aad ku nafistid laakiin mar kastaba ilaahay kuu nafis فإذا عزمت فتوكل على الله قوان كاغو ahaado go'aan qawi ah oo leedahay ilaahadan ku tala saartay horumar baan rabaa ii fududay kadibna talaawooyinka qaad waxa loo dabaaldegaya sanad guurihii iyo bugbugtii iyo dambigii iyo fisqigii adiga laakiin waxaad u dabaaldegtaa wixii i dhaafay ilaahay baan uga toobad keenaya waxa soo socdana ilaahay waan ku dadaalaya taas u dabaaldeg laba rakaco salaad alxamdulillah ilaahay aad ku shukrinaysid tuko kadibna horumarkaaga waa horumarkaygana waa horumarkaaga ilaaha naga dhigo kuwii horumara oo ilaahay raalli ka yahay oo ilaahay u dhawaada adduunkana guul ka gaara aakhiradooda guul ka gaara ilaaha naga dhigo biidnillah baari qof kastoo dhibaataysan ilaa dhibka ka saaro
intii sanadka dhimatay ilaahay dambi dhaaf waxaan weydiinaynaa iyo qabrigeenu waasiciyo inuu qabriga u nuuriyo annagana ilaahay gadaashoodna ma fidneeyo wixii aan asiibay ilaahay baa mahadeeda iskale wixii aan gafayna nafteeda shaydaan bay ka ahaadeen insha allah wada xiriir wacan iyo isdhiirgelin iyo horumar wacan ayaan ilaahay nooga rajaynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu